ahaa waqtigaas iyo macnaha waqti ka fogba dadkaasni waxa weeye waxay lahaayeen saldanado iyo kala dambeyn iyo maamullo marka maamul kasta oo yimaada iyo dawlad kasta oo timaada waxay soo martaa macnaha xadaarado kala duwan haddaba maanta waxaan haysanaa dawlad iyo nidaam iyo barlamaan waxaan leeyahay haddaba Cabdullaahi Saciid Dani waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto halkan dawladda soo dhisayso iyo macnaha wasiirada soo dhisayso ha noqdaan dad khibrad leh anigu waxaan arkay Puntland inta badan dhalinyaro shaqeynaysa wali ma arag dadkii dawladii hore ahaa lagama faa'iideysan dadkii dawladda hore ahaa waa buul weey dadkaasi dawladnimada waxbay u tarin lahaayeen hadii laga faa'iideysto maxaa yeelay khibrad badan bay hayaan dawladnimaduna ma aha kaliya waxba soo bartay kaliya kaalay aan xilku dhiibo dawladdu khibrad bay u baahan tahay waxa halkan oran lahaa سيد عبد الله دني مدحوينه waxaan ka rabnaa in khibrad dadka leh aad soo xusho si dawladnimada iyo maarta maxay dadka bay u badbaadiyaan bismillaahir rahmaanir rahiim wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu nabiyina muhammad alayhi salatu wa salam marka koowaad ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hada iska leh bulshada reer Puntland oo halkan isugu yimid iyo martida kale ee ka kala yimid magaalooyinka kale ee dalka Soomaaliya wakiilada ka ah runtii farxad bay tahay xafladan loogu dabaaldegayo guusha Puntland in marka loo doortay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani sharaf iyo karaamo ay reer Puntland u tahay inay mar kale cugtaan Saciid Cabdullaahi Dani inuu madaxweyne u noqdo anigu afka dhalinyarada media ka hadlayaan ku hadlayaa dabcan waxaan aragii u ololeynay in mar kale Saciid Cabdullaahi Dani loo doorto hogaaminta Puntland waana la weydiiyay waxaana lagu yiri war maxaad mar kale Saciid Cabdullaahi Dani 5 sano soo hogaamiyay Puntland federaalku tagay waa soo waayay maxaa 5 sano kale Puntland in loo doorto aad dadka ugu baraarujinaysan ama xildhibaanada aad u leedihiin ha loo doorto saddex qodob ayaan Saciid Cabdullaahi Dani dadkii xildhibaanada ahaa aanu ku soo celiyay arinta koowaad waa dimuqraadiyadda uu ka hirgeliyay markii ugu horeysay Puntland waa hogaamiyaha dimuqraadiyadda hirgeliyay Puntland 25 sano ay dhisneed wuxuu ahaa hogaamiyihii ku dhiiraday in dadka reer Puntland ay codkooda wax ku doortaan taasina waa dhacday alxamdulillah rabbil caalamiin qodobka labaad ee aanu ku soo celinay ama aanu ku dooranay waa halgankii ka socday SSC Khaatumo ee lagu la dirirayay jabhadii argagixisada ahayd ee dadka reer Laascaanood duqaysay sidoo u taageeray reer SSC Khaatumo haday tahay madasha Soomaalidu isugu timaado haday tahay halka siyaasadda Soomaaliya waxa way looga hadlo wuxuu ahaa nin markasta qadiyada SSC Khaatumo geeyay ka hadlay taageeray waxaan xasuusanaa in midowga Yurub intee galaw ugu tageen bishii May 2023 markii qolyaha ay musleynayeen argagixisada SRM ay lahaayeen argagixisa Laascaanood ka dagaalamaysa argagixisa nala diriraysa cidii marxaatiga furtay ee tiri argagixisa ma dagaalamayse reer SSC Khaatumo oo dhul bahante ba ku dagaalamay jabhada argagixisa Dani buu ahaa taana waa ku taageernay waa guul weey Dani waxaan u aragnay nin matali kara beesha ballaaran ee Daawud Ismaaciil afkaartooda ku hadli karta saddexda qodobna waanu ku keenay dadka dabcan reer Puntland sharaf bay u tahay in mar kale hogaaminta loo doorto Saciid Cabdullaahi Dani jaaliyada Puntland waxa salaamaya jaaliyada kale Soomaaliyeed meesha jooga jaaliyada Khaatumo gudoomiyaasheeda iyo intii meesha ka hadashay oo dhan marka labaadna waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaha la doortay dib loo doortay Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa xildhibaanada cusub waxaan rajaynayaa Allahna uga baryayaa in ay waxaan ku dooranay iyo dadaalkaanu ka aragnay inay siyahana qaadsiiyaan oo ay maxaa la yiraahdaa meesha la rabo ay gaarsiiyaan haddii Alla ka dhigo waxa kale oo aan rabaa inaan dad badan meesha laga xusin baa jiro musharaxiin fara badan baa madaxweynaha la tartantay musharaxiintii iyaguna madaxweynenimada isku soo taagay haday noqon lahayd tii madaxtooyada madaxweyne ku-xigeenka kuwii xildhibaanada ahaa tartamay xildhibaannimada waayay gudoomiyaashii tartamay dhammaantood in aan maartay halkan uga mahad celino oo aynu ku xuusno runtii si doorashadu marka ay dhamaato dadka midnimadooda iyo maxaa la yiraahdaa wadajirkoodu uu u soo laabto ayaan iyada qudhooda rabaa inaan xuso waxaan rabaa
maanta gabadh meesha fadhida oo walaashaya oo farxiya yaasiin dufanle la yiraahdo baa gabay ii soo dirtay marka suugaanta marmar waa lagu yiraahdaa oo wax laga yaabaa inuu haddaan gabiyo hadda inaan afkaartiina iyo aragtidiina waxa idinka dhex guuxaya aan idiin idhaahdo marna waxaa dhici karta inuu qof kale gabiyo oo uu maaragtay qofkaasi uu aniga igu matalo dee suugaantii oo aan dhaho alleele intaad odhan lahayd bade qofkaasaa yidhi laakiin maansideeda waan akhrin doonaa maanse calanka ku saabsan iyo Puntland iyo marxalado kala duwan iyo madaxdeedii ka midaba ay ii soo dirto waxaan jeclaystay in aan anu madasha ka akhriyo nin saaxiibkay oo aad isku dacaydayno madasha joogo oo oran jiray suugaanta gabdhaha kuu soo dhiibana caawa intaa igu helo intaa igu dacaydeeyo marka taa iyo mid kale ma akhrin doonaa laakiin waxaan rabaa inaan halkan qof kale ka xuso wadanku xaalado adag buu ku jiraa waad aragteen damacyada inagu socda faafka bariga u socda ee maxaa la yiraahdaa galbeedka ka imanaya dhulka iyo badda iyo maxaa la yiraahdaa khayraadkeena la sheeganayo sanad kasta iyo shantii sanaba waxaan arkaynaa in markasta duulaan lagu yahay dhulkeenii tii Kenya aan ogeyn hadda waxaan aragnaa Ethiopia maxaa la yiraahdaa soo baxday dadka Soomaaliyeed in ay maxaa la yiraahdaa isku duubniyo wada jir arinta ay maartay ku wajahaan baa loo baahan yahay madaxweynaha iyo madaxda Soomaaliyeedna in lagu taageero runtii ayaan codsanayaa waxaan kaloo halka rabaa inaan uu ka xuso gabadha la yiraahdo Ilhaan Cumar oo Koongareeska Mareykanka ku matasha Soomaalida hadalkeedii iyo dadaalkeedii iyo maxaa la yiraahdaa weedii ay noo tiri wax weyn bay ahayd runtii oo macna weyn noo sameynaysa khayr Allah ku siiyo baan leeyahay aad iyo aad baad noo mahadsantihiin maansadaasaan akhrin doonaa hadduu alla idmo kadibna haddii uu hurfayisa maanse kale aan akhrin doonaa wuxuu yidhi baan maqli jiray waxay tidhi calanyow caddaankiyo cagaarkiyo buluugiyo xidigtii caddayd iyo ka samaysan caadow waxaad tahay mid cuudoo caynkiisan oo kale la caleema saarine cagaarkaagu waa doog caddaankaagu waa nabad cirka oogadiisiyo xidigtaa caddaankee shanta cirif u jeedana caddayn weeye qaranoo waxaad ceesh wadaagtaan cadna kuugu yaallaa Soomaali caamkeed ceelaayo iyo bari calmadow sanaag iyo cagaaran iyo mudug iyo ceegaagta sool iyo cirifyada nugaal baa ku caleema saartay cadow kaama hela libin cabdiqani garaad iyo salaadiintii ciidiyo cuqaal laga hibaystiyo curadada geyiga iyo hanadaa cag kuu dhigay habla calanka kuu lulay curadaa ku daafacay cadda iyo farool iyo cabdilaahi gaas iyo deni oo cod shacab iyo midnimada ciseeyaa ciid iyo dhulkaa jirays cadna waxaad ku leedahay cawaaliya dirkiisii cashiiriya xigaal iyo bulshacad iyo jiiro musna ceeshul milixaad cilaan iyo u tahay u waxbay tiri maansada quruxda badan ee calanka Puntland ka hadlaysay gabadha ay soo dirtay aad iyo aad bay u mahadsan tahay hablaha kale halabuurkaana waa soo dhaweynaya haddii aan ku darsado maase kalena waa ku darsan waa sax weeye wuxuu yidhi dharaarba warbay sidaa dhambaal weeyaan wakhtigu rajadu guushay dhashaa caqligu waa dhaamiyaa dhaqaaluhu waa cilmiga markaan dhanka wacan ka dayo dhaliishu waxbay saxdaa erayna waxa loo dhigtaa dhankiisa wanaagga leh haddaad tahay ruux dhibsada wuxuu dhahay ruuxa dhaha dhegtiyo afku ha ismaqlaan adkaysi haddaad u dhalana feeftaa lagu dhaqmaa dhammays aadmigu ma aha dhowaan arag baynu nahay caqlaa la isdheeryahee khalqigu dhaayaha ka siman waxay laba wada dhugteen ayuu nimba dhan u arkaa runbaa qowl lagu dhidbaa been baan weligeed lib dhalin nafsigu waa soo dhaxaa dhagxumo waa laga durkaa sharaftu waa dhowrsashada iimaankaa laga dhargaa dhulkaagaa lagu hodmaa qurbaa lagu dhalan rogmaa qaranna waa loo dhintaa dhiigba calan loo shubaa abwaankii dhaqanbilee sidii dhaygeel murtida dhansii jiray aadmigiyo tixbuu kaysana ku dhahay baahidu cashar bay dhigtaa dheelleel cirka laguma tegin ciyaar ifka laguma dhalin dhibbaa aadmiga waxbaray rag dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhigoodiiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiirigeli inuu dhaafiyo riddada halkuu qayrkaa wax dhigay waayuhu waa dhowr wejile markuu dhool kuu curtaa dhijaamuu biyo tufaan dhirtuna ubaxaysataa geeluna badi kuu dhalaadhay iyo xoor buuxsataa
marbuu kula dhala rogmaacirkuna dhibic joojiyaa dhulkuna engaga abaar dunidu waa dhabanahays dhib iyo waa khayr isxiganin dhalaniyo waa mid dhiman ogow waa yeelka dhacay marbuu dhalinyaro ahaa dhaqsuu ku socdaa wakhtigu waagii subax kuu dhashiyo libdhada geli kuu dhacdana wadkaad u dhowaanaysaa ifkaad ka dhammaanaysaa dhabtuna waa aakhirada waxaa jahannamo ku dhaca dhimbiisheeduna gubtaa ninkii dhabadeeda mara jannana dhaya laguma galo dharaarta qiyaamahana waxaad dhinta kaysatiyo waxaad dhigataad heshaa dhankaa waxaan uga socdaa wax dhacay dhaafoo ka gudub soomaalaay wax dhacay dhaafoo ka gudub wakhtiguyuu kaaga dhumin dharaaro doraata tegey u yeela dhugsaa dambaa dhigtiya tala kaa rabtee taariikhda dad baa ku dhigan dhintaa jira nagu dhex nool waxaad dhulka uga tagtaan xasuusiya waa dhigaal dhashiinana waa u kayd adoo dhaxal reebi kara ha noqon dhinta aan la tebin ha kicin dhiiliyo colaad dirkaagu hadduu isku dhaco suldaan dhexdhexaadsa noqo dhannaba yaan lagugu tirin u dhowla caddee khalqiga dhawayso qofkii ku necab ha dhaawicin ruux ku jecel ha noqon ruux dhinac ka rara dhegtaadunayay mid noqon dhegaysato keli xumaan wax dheeldheelkaa ah buu dhabaystaa aadmigu iyo hadalkuyuu kaa dhicdhicin ha noqon dhagarqaba kalkaal dhowhana lagu meelmariyo dhaandhaan yaan lagugu xamandantaada dhibcaal u noqo siduu dhirta ubax u bila ayuu dheru yahay hiduu dhaliil kuma laha qalbigu xumaa laga dhaamiye waxaa dhelan rogo khalqiga dhumaha qayrkii dhushiyo dhanxiirka dhanxiirhoodiyo dhallaanka la duufsadiyo ha noqon dhaqankiiska carar ha noqon dhaanraac la hago ha noqon ruux la isku dhigo ha noqon dhagax uu qofgamo ku dhaca meeshii la rabo soomaaliya ha noolaato aad iyo aad baad mahadsantihiin puntland ha noolaato بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم دمان ولا لها كسو قيب قلي حفلة قيمها إيو قايها مدن aynu ku xusayno xuska 25 guurada Puntland uu hoggaanka u hayo madaxweyne Dr. Saciid Cabdullaahi Dani golaha baarlamaankana uu u fadhiyo Cabdirasaaq Axmed Saciid iyo madaxweynaha Lugator dhammaan shacabka Puntland waxaan ilaahay uga rajaynayaa khayr iyo barwaaqo iyo baraaro inay ku hantaan kuna gaaraan madaxdooda iyo hoggaankooda wanaagsan sida ay ugu hoggaamiyaan waxaan anigu ku soo gabagabeynayaa ama aan ku soo gunaanadayaa in Puntland ay tahay meel ka dhaxaysa shacabka reer Puntland dhammaanna ay ilaashadaan nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda iyo koritaankeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راري تباري أنت كلا أو مجالين كلا نوجي يمد وسلام عبد العلي بدن كان واصل قناة ومرنيا وحان ربي وكلية إن هذا اللقب صدق بيش أقصى كي من أنو بنتلان بابور بابا وحان كراعي مجال قال كعيو وحان كنت إلا أيو بوساسو شد كلامي حضار أركتان أنا هو تجري سنة كيف مر أما الله سنة مر بنتجري ما أنت حضار أركتان مالي ير ما هنا أنت كله لاميجا السويدن كيالا كما دونا سأنا وقتان وايه وحوي مرنا عادي معها وحنا ملاين يا صوماليا صدق كيسنا وقدم بيجي وده الشغل لا يقبته وكم بنتلاند لا يقبته كفي عن أنت صاركي ما شفته تاسكو بيعبا مدة لبعض waxaan kaloo gaari ka raacay magaalada Gaalkacyo waxaan aaday Garacad
saddex saac iyo bar baabuur Land Cruiser kama dhacdo laami waa jid shay ah oo laamigiina mar dhow la marinay qalabkiisii shalay iyo maanta uu dagahayay waxa way asagana laami ilaa galdogob laga dhigi doona haddii alla idmo waxaad kaloo ku darsataan dekadda Boosaaso waan istaagay sawirradana waa ka hayay fiidiyoyaal waxa ku soo xiran kara ayaduna hadda waxaan malay asbuucan inay dhamaatay run ahaantii in yar oo meeshii konteenarada la dhigi lahaa ayaa u dhimanaa oo la marinayo laami la marinayo waxaan filayaa 3 markab oo midka dharkiisu yahay 100 ilaa 150 waa ku soo xiran kara qaarna waaba taagnaayeen markaas intaasaan rabay inaan la qaybsado waxa weeye Soomaaliya maanta horumarka ugu weyn meesha uu ka socdaa waa Puntland weeye. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. waxaan marka ugu horeyso u mahadnaqayaa dadkii xafladda quruxda badan oo gabdhaha quruxda badan iyo wiilasha quruxda badan isku keenay caawa oo nooga duwan habeenadii kale caawa waxa weeye waxaynu xusaynaa oo soo dhaweynaynaa dawladda cusub oo madaxweynaha ka yahay Saciid Cabdullaahi Dani iyo tiibka la shaqeeyay insha Allah taala oo kamid ah madaxweynaha ku-xigeenka iyo ra'iisul baarlamaanka sidii walaalkay uu sheegay iga horeeyay haddee waxa weeye wixii sheegi lahaa isaa sheegay idinkuma kolley qof kasta oo og yahay intuu Saciid Cabdullaahi Dani joogay waxa uu ka qabtay meesha la yiraahdo Puntland wax la qarin kara maahan shacabkaas hadda ma ku qarin karaa maxay ahayd qorax kuma qarin karo marka waxaan leenahay Saciid soo dhawow Saciid mar labaad 5 sano haddana insha Allah taala maartay muxuu ahaa wadankan xukun idinkana waxa idinkaga baahan yahay shacabkeena inaynu garab taagno dawladda insha Allah taala aynu wax alaala waxay qaban kartaa la qabanno iyagana waxaan u rajeynayaa insha Allah taala 5 sano soo socoto iyo shaqo fiican iyo meeshii ka sii wadana hadii la ilaaho mashaariicda hore u jirteen ay sii wadaan mashaariic cusubna ay keenaan dadkana ay isku dayaan maartay xogaa waxa iska jiray maartay markii doorashay dhacdo waxa dhacdo sida saaxiibkii aad uu sheegay ra'yi kala duwanaansho marka doorashadii waa dhamaatay marka محافظ يا معارض وين دولة التاجر هذه لينه. كلا دورتي سعيد عبد الله الديني يور مدحوين الحجين كالوطور يا رئيس البرلمان كبطلان ودنا وهم بلينا يا سومالي ودنا وهم بلينا يا وحن لي مدحوينها عصب يو تيم كيسا إن شاء الله إلهنا يدين قدريهم بليون وحن لي هاي إلهنا وحن قبر يا إنه قدري هوش عرس والوحن سالم الغبار ربي وحن قبر يا إنه ما تبطي وقالوا سهل يسير وقالوا قبل كيسر من قبل المواقف مرة وحن رأى كينا وحيا geeraar yahna waxaan ka tirinayaa xildhibaanadii iyo si ay madaxweynaha noogu doorteen xoogaa buraanbur yara qarankan waa ku dhufsanaya marka geeraarka waxaan leeyahay waxaan idin farxad baan la daandaamayaa waan dayaysnahay dabuurtayda kuma koobi karo dooda aan qabe allaha daayina waxaan u diray maxadan duugo inuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوو يا مدنيال أمدا الصوماليات سيوا أمدا بوتلان هي سيوا الحمد لله سلام عتولي. مع بضع عمقبو بوتلان أنا وحفلة جار أنا رئيس رأينا إن البرنامج كنا أما حفلة دينا كسوة غير جلو ayaa go'aansaday walaalay waxaan aad iyo aad hambaliyada u hambaliyeynayaa mudane Dr. Saciid Cabdullaahi Dani badbaadiyaha ummadda Soomaaliyeed ayaan leeyahay على مساكيسي إني ميدي ummadda Soomaaliyeed ya dadkii indhaha u ahaa ummadda Soomaaliyeed inay ka soo qayb galaan dhammaantood rag iyo dumar iyo maaragtay iyo fanaaniinba waxaan leeyahay hambalyo taa uu ku baaqay inuu gogol nabadeed ummadda Soomaaliyeed gurowga loo dhigayo oo maaragtay lagu lafagurayo
halaagii iyo dhibtii dhexdeena taalay iyo kala jeejeesigii waxaan leeyahay gubashaasi gubashii ummadda Soomaaliyeed midna ilaahay ha ka dhigo anigu xoogaa iiran nifaane ee maalintay darayd ee maaragtay laascaanood xabaddu ku socotay ninkii u badheedhay markii la yidhi shabaab baa la dagaalamaya aniguma shabaab baan saaxiib laahay idhi maaragtay taallada jamaahiirta isku biimiyey yaan ahaa marka waxaa ku soo dhaweynayaa xildhibaan yoonis waad wada garanaysaan taageerayaal baynu u dhahay kalka soo socda federaalku inuu ka qayb galaya haddii aan la idmo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وعن ربا إلهي كسكونا أمهد عليو ولا لها خيمة شرفت بدن رقي دمر سيدا لقوي خينا قبني ماذا لهيد حفظنا قرقنا بني سوء أبابولي وعن الله جزاكم الله ألف خيرا مركورة طبعا حفلتنا وحفلة فرحات وحفلة دعو وحفلة دردارنا سوق جرتا كبدن من قنكرت سدع هذا الشيء واحد نافسن ما إيمان كرت دعو دردارن إيو إلى هو يسنانو ضلكنا طبعا مدحين محمد سعيد عبد الله دني ومر بعض الدورتي وعن أجنهاي إنه يهاي هجامية كم ده هجامياش صوماليات قوة عد رنتي كرتين أوله صوماليا مانت جيس كجيس وحي هالس وجرتها إن قارة أفريقيا كبعضه سنوينك الصور دافع ترى بنا بعد كده مركز دبادة لقى شيء دجال سوكية سومالي وطن معلوم ربو مال مجدي أكوسي سخنيس إلهي حمدي شاني طبعا كستان الصور دافع وحاسوب موقت إن الدب وصانو قناس الله كريم وحاركنا إن النهاية مرة نقولنا أكوسي قناي هلب عد بيليال الدفادو إجرونيس إن النهاية لكن ما أنت إلهي سبحانه وتعالى وحماش أو كاني سعيد عبد الله الدني وكم ده هو جامياش مامور قبل ضل كنا ورنتي أنا واقعا أمان ليه كرو ونبضون بعدما وياهي إنه دور كمان الصومالي أبا أنت يمشي الصومالي كجاب سنتها ربا إنه كرو سوق هذا إن سياسة دلوك الدنيا هاي اللي سجي مادو عدوغا مانتا صوماليا أولا أمليني إني ننقنايان لكن مانتا ربا إنو إفيو عداوة دحدنا بنت أنا نسوكي ديبنا إيش إنو كسارة إلهي سبحانه وتعالى وحلاه سعيد إلهي كوكو معبه جوجاش سافدس إلهي سبحانه وتعالى وحلاه كيكو جوريستا الله كديكو أنت أسكدي من حلاه إنها مدحيني صومالي صوص صعدة وحكاه رأي مله وكاه تاج مله مثل واحد داي وضع الشيء بداس دقاها فرح له دارك كان عديست جيتك دين عمراي دوبا دقسا هي كان دقاقو دقا حيس ساري دوبا دقسا هدي ودا دشين وحاو دحيا ننكي دقا لهو مخل ننكي دايا لوراك وحاو دحيا ننكي دقل هو مخر ننكي دايا لورا وان دوريا هاي وان ديسيا وان دوريا وان ديسيا دانكان هاي صومالي دودمان نبتي وحيرتا واودي منيا صومالي دودمان نبتي وحيرتا واودي منيا واودي منيا ما شاء الله سعيد عبد الله الدنيا وحلينا مرك أرنت دردارنك مدحوين السعيد ما تيد مدحيناه كلية بونتلان ما تيد مسؤولك كلية بونتلان waxaa tahay geyiga Soomaali meel kasta joogto af Soomaali loogu hadlo madaxweynaha tahay waxa rabnaa gogashaas inay noqoto gogol saad u furtay markii laga kala tagay maalinka ugu dambeysay in noqoto Soomaali maxamed midi ku midowday cadawgeedna isaga ilaalineed inta annaga aan kan dambeynana ducaan rabnaa inaan siino hada wallahu a'lam wassalamu alaykum warahmatullahi إن شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاد وضع مقشين مقاعي وفتحي عبد الله ديرية وحن كعص بهاي مقالة يتبوري وهذا عندنا هاي وانكو فرح سنة هاي عاوة إن نهرتي نسو استاغو أنيقو قبر صوماليات ودونيسا إن تقرب سيسان ودونيسا أما هنكالي سياسة ودن كان سويدن وحن نشرحنا إن شاء الله مشرح نمو ولو إيسن حلقة دوين لكن محما إلا إسبرتو دادك إسكا يقانان waxaan rabaayo kale inaan reeha markoolan si khaas ah isku barano waxaan ka shaqeeyaa shirkadda Boostas Blogedka qaybteeda Hamarkoolan iyo Ranabari wajiyadiina qaarkood waa isgaranaynaa iskuma cusbin dadka aan isku cusubnahay insha Allah barasho wanaagsan dhamaanteen aad ayaan ugu hambaliyeenayaa shacab weynaha reer Puntland waxaan leeyahay hambaliyo مدن مدحوينا وحنا لي هاي سام مرلبات كود دورناي بان إن شاء الله مرسدحات نكود دورناينا صون نقو أضع عافمات قبا حد وحنا ندبالدقينا بنتلان كلية لكن إن شاء الله صومالي إن مدحوينا ووضع نقطه إن ندبالدقنا إن شاء الله رجينا وتكون محسنت هاي ونكفر أحسن هاي عالم كبنتلان عاوة إلا إسارة عاد أيام إذن كوهم بليين يا رير بنتلان waxaad tihiin dad midaysan oo qadiyadooda iyo siyaasadooda isu tanaasula waxaad haysataan dal aad u qurux badan waan idin hambaliyeenayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad
waxaan leeyahay madaxweynaha Siciid Cabdulaahi Deni سعيد صانق إن شاء الله حلفة حكتا وأديك الصومالي أن مدحوينه إن شاء الله وحي عندي لها والله ده هاي إنتاس أيام إنك جتجيا برشوا نكسر ريري تبوري إن شاء الله وحينو بلنا مركي سود وده هاي دار الشدة إنتاس كهرنا وانس أكيدنا ما نقندنا سياسي إنتو وحيدين شيء إذن كجبحة وحنا نقندنا قف كدوان أن لندرة وحب بلنا قاعدنا كصبحة سو أبتجي هرا وقد واجي إلهانتا سويدن وانيجا reer Puntland waxaan u baahanahay codkiina iyo garabkiina maadaama niligu xanta inaad siyaasadda aad u taqaanaan waxaan idinkaga baahanahay garab dhamaantiin insha Allah waa mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan dadka munaasabaddan isugu yimi nooc kasta oo yihiin haween dhalinyaro odayaal cuqaal waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta badeed wixii la oran lahaa horaa loo yiri munaasabadeeduna caawa waa saddex waxyaabood waa taageero waa hambalyo iyo mahadnaqo ilaahay baa leh mar labaadna waxaa leh oo mahadnaqayaa gabdhihii iyo guddigii reer iyo taboori ee munaasabadan quruxda badan inoo soo qabanqaabiyey waxaan leeyahay allah idinka ajar siiyo taageero waxaan u muujinaynaa hoggaanka cusub ee Puntland oo hormuudka ka yahay madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni oo helay fursad uusan helin intii ka horeysay waxaan filayaa laba qodob baa u suurtageliyay koow waxqabadka Puntland ka muuqda labo taageerada hiil iyo hooba leh ee uu geystay maamulka Khaatumo labadaasiba waxay sababeen inuu ku guuleysto mar labaad waxaan madaxweynaha leeyahay madaxweyne labadiiba wali waa taagan yihiin waana kuu baahan yihiin Khaatumo wali waxay u baahan tahay garab istaag hiil iyo hoob يا أنت عجهد سيف عن وجود صحونيسو ماشي على وجود دي وصي في عنوان كله ماذا هو وأنا درسنا هي إن هذا وصي في عنوان تنتهي الله يقول قدم كل بعض وعن مدحونا وهم بلينا يا كلامه يكي وقاضي دور الشركة بعد وأها كوا وكل على الحارة حجاج يرى وحنجروفتها وكل شيء دور الشركة ميل في عم بين مريان تاسنا وحي عدينا يسا وجه قدبتها مدحوينه إنه يهي Puntland هل وجيله وميل ولا صحته إن شاء الله تعالى بوشنا ولا قارن دونا في Puntland وحن ليه هاي ورواد ركتانو ميل بدن والصومالي كم يده ميل الترين ديريا لسارية هاي ميل الدنيا ديريا لسارية هاي لابد وودم هايستان ودم مري هاينا لما سمين وربل أنت ودل هلايو وروي maamulkiina adkaysta dawladdiina la shaqaysta nabadgelyadiina dhowrta Soomaali midnimada adoona waxaan ilaahay ka rajaynaynaa shirka garowga inuu noqdo kii doonta iyo tareenka wada u sameyn lahaa oo Soomaali ku midoobi lahayd oo inagoo wada nabdoon ee fuul lahayd baa ilaahay u rajaynaya bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan dadka meesha isugu yimi dumar iyo ragba waa islaamaya waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka xafladan quruxda badan dadkii soo qaban qaabiyay aad baan u salaamayaa iyagana dumar iyo ragba iyo qolada dhaqanka iyagana aad baan u salaamayaa inta kadib salaan kadib waxaynu isugu nimi xafladan hambaliyada ah oo loogu hambaliyeynayo madaxweynaha mar labaad la doortay Siciid Cabdulaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka hambaliyaan leenahay madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa hawl badanna waa u taallaa hawsha u taalna waxa weeye in ilaahay ku guuleeyo hawlaha aan ka rabno oo aan doonayno inuu qabtana waxa weeye marka labaad hawlihii uu soo bilaabay oo ahaa haydan dimuqraadiyaddii degmooyinkii la doortay inta dhimanna in la dhammaystiro intii horey loo doortayna in maaragtay waxay qabteen iyo waxa u dhimanba in laga daba tago intaa kadib arrinta labaad oo ah maamulka Khaatumo sidii uu hoos ugu daadejin lahaa maaragtay siyaasaddii iyo maaragtay nidaamkii iyo garab istaagii uu ku garab istaagay madaxweynuhu hadda waxa loo baahan yahay mid ka xoog weyntii hore taasoo ah xagga siyaasadda
labada maamul qaabkii la isu waafajin lahaa oo hoos loogu daadejin lahaa waxyaalaha looga baahan yahay weeye madaxweynaha oo aan tala ahaan ugu soo jeedinayno inuu maaragtay nidaamkii horay maaragtay dadku ay waxyaalo maaragtay qaybo ka soo horjeeday jireen waxay la tahay dee qaybihii ka soo horjeedayna waa arkeen miradhalka uu leeyahay hadda dadka dhammaantii waxay wada taageersan yihiin in maaragtay dimuqraadiyaddii hore loo sii wado taas waa mid markaan wax yar dib ugu laabto maaragtay nidaamyadii 25 sano ee soo maray Puntland madaxweyne aan isku dayin horta ma jiro in maaragtay arrinta khaatumo in nidaamkeeda ama arrinteeda wax laga qabto madaxweynayaashii soo maray madaxweyne aan isku dayin ma jiro laakiinse Siciid hal buu dheeryahay halka uu dheeryahay waxa uu jaanis u helay kacdoonka shacabka iyo isimada oo isgarab taagan iyo isgarab taagga uu siyaasadda isku garab taagay intaas ayuu jaanis ku helay ma aha wax ka duwan horay waxa loo waayay shacabka iyo isimada oo isgarab taagan baa horay loo waayay laakiin marakan waxay noqotay mid fushay aad buu ugu mahadsan yahay arrintaas maaragtay garab istaagga Puntland waxay u baahan tahay horumar iyo maaragtay waxyaalo badan arrinta horumarka uu qabtayna aad baan ugu mahadinaynaa khadar muuse beegaag ninkii yaqaane asaga hadda inoo haya insha Allah taala beediyaha asaga YouTube-ka iyo goglaha inoo soo galin doona kulligiin waa la idin arki doonaa kulligiin wajiyadiina iyo annagoo faraxsan iyo hadhow markaynu baashaalayno insha Allah taala u mahadnaqa waa baadsantahay dhacaya خضر وسحبك وسحبي خضر وباتسطاي خضر موسى شري haddii aan dib ugu noqdo doorashadii anigu waan fadhiyay doorashada maalinta dhaceysay iyo kaambeekii xildhibaanada intii ilaahay calaf ugu daray ayaa xildhibaana noqotay intii kaleetana waa la shaqaysay madaxweynayaasha intii madaxweynaha la tartamaysayna waa la shaqaysay waana iscafiyeen Puntland waxay ku suntan tahay tasaamux taqaabul iyo tafaahum Puntland waxay ku xunsantahay markii qof oo wax la doorto in lala shaqeeyo hareeraha lala qabto Puntland hal qof ma leh waxay matalaysaa dawladda Soomaaliya dhabarkeedii way caamudu faqaarigeedii cid aan joogin doorashada ma jirto marka haddaan qodobka ku soo noqdo doorashada walaalayaal inagu seen u fahansanahay iyo sida gudaha jirta waa kala gooni dadku waa dad u bisil dimuqraadiyadda waa dadka u bisil siyaasadda waa dad maxabo ka dhaqayso waa dad og madaxweynaha waxqabadkiisa ta dawladana loo hambaliyeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha waa dad soo wada shaqeeyay waa dad dhalinyaro ah waa dad isfahamsan waa dad dimuqraadiyadda ka wada shaqeynayay oo ka wada mida iyo tebet iyo dawladda maartay iskarab istaagay isla wada shaqeey yaqaana marka idinkuna ku soo dhawaada ayaan idin leeyahay waan salaamaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن وذا السلام يا دمار dadka meesha isugu yimid rag iyo dumarba waxaan u mahadcelinayaa يا wiilasha iyo gabdhaha hawshan nagala qayb qaatay xafladan aad iyo aad u quruxda badan aad baa mahadsantihiin waxaan kale u mahadnaqayaa dadka dhammaantood isaga yimid magaalada Yatagor iyo banaankeeda aad baa u mahadsantihiin waxaan halkan hambaliyo iyo bogaadin uga jeedinayaa dawladda cusub ee ka dhalatay Puntland aan ku bilaabo marka ugu horeysay inaan u mahadceliyo anoo dareenkayga qof ahaaneed iyo kanjaaliyada halka kanba ka turjumaya isbeddelka cusub ee laba lixaadsaday ee ka dhacay dawladda Puntland ee Soomaaliyeed taasoo aynu mar labaad ugu cusboonaysiinay madaxweyne cusub isla markaana ay ku soo saartay bulshada Soomaaliyeed ee Puntland hogaamo cusub oo haddii ay golo shacab tahay iyo haddii ay madaxweyne ku xigeen tahay madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni madaxweyne ku xigeen Ilyas Cusmaan Lugatoor iyo Cabdirasaaq Axmed Saciid oo ah speakerkeena cusub ee dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waxaan rabaa in idin la wadaago dareenkayga qof ahaaneed anagoo oraahdiinana qaadanaya kalsoonidiinana wata inaan u hambaliyayno oo aan ku niraahno
waxaanu idinku garab taagannahay idinku hambalyaynaynaa idinku taageersannahay ku faraxsannahay xilkan ay bulshada Puntland ee Soomaaliyeed ay mar labaad ka madaxweyne ahaan iyo madaxweynaha ku-xigeenka iyo speakerka ku soo saareen iyo xubnaha baarlamaanka ee cusub ee dawladda Puntland waxa la yiraahdaa البلد الطيب يخرج نباته والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ومعنى هذا يهي بلدك أما بلشدة وناكسن إيو سبدا وناكسن وحي سو سارتا مره هذا وناكسن وعن رنكر إن حكومة العصوبة سيد عبد الله الدني مدحوينه وكي إني مر لباد وسعيد لكن هجاميو وحا أساس يصلق أوه وعيga iyo garaadka sareeya ee ay leeyihiin bulshada gobolada Soomaaliyeed iyo dawladda Puntland ee Soomaaliyeed ka soo jeeda ayaa sabab u ah fahamka dawladnimada ee ay leeyihiin iyo wacigooda sareeya iyo garaadkooda aqooneed inay gartaan inay ku qiimeeyaan maamul kasta oo talada ay u dhiimanayaan wax qabadkiisa horumarka uu ku tilaabsaday markii hore la dooranayay ballanqaadkii uu sameeyay sidii uga soo baxay waana waxyaalaha lagu yaqaan bulshooyinka waaciga ee dhisan inay fahmaan inay u abaalgudaan hogaankoodu hadii uu ka soo fulo ay ka soo fusho ama uu hirgeliyo qayb kamida ma xataa 100% qayb kamida haduu hirgeliyo wixii loo doortay waxaan leeyahay marka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxaan kugu hambalyeeynaa waxaad 5 sano oo aad xilka haysay adiga iyo intii kula shaqeynaysay ay guul ka gaareen waxa aad timid hogaanka iyada oo madax ka toogashada Puntland ay cirka marayso oo dalka iyo dadka wax laynaya aan la garanayn waxaad ku guuleysatay ilaahayna ku suurta galiyay adiga iyo intii kula shaqeynaysayba inay taasi meesha ka baxdo waxaad ku guuleysatay oo hogaankaaga iyo intii kula wadayba ay ku guuleysteen iyada oo dalku gacanta Puntland maamulkeedu uu ka kala maqan yahay dadaal dheer ka bacdi in maanta ay rumowdo riyadaadii ahayd sool iyo laascaano faataxa laguma qabsan laakiin waxay noqon doontaa meel mudan waxa ay mudan tahay madax bannaan dadkeeduna uu taladeeda leeyahay taasina waxay ahayd dadaal aad qayb ka ahayd adiga iyo intii dheecaan iyo dhiig iyo naf iyo maalba u hurtay ee ay suurta galiyeen sidoo kale waxa Dennis aan isleeyahay inay soo celiyaan waxa asal u ah in midnimada Soomaaliya iyo dalkeenu maanta marxaladda uu marayo baahida ugu badan ee loo qabo ummad heshiis ah xasilooni siyaasadeed leh midaysan inta af Soomaaliga ku hadashana ka turjumi karta in la helaa inay u baahan tahay hogaan tigaadeedii iyo aragti dheerideedii leh waxayna dareentay Puntland inaad noqon kartid qofka adiga inta aad xilka kula hinjidayba hadda waana midda keentay lagaana filayo maanta waxa loo madlan yahay madal garoow la dhigay waxa loogu baahi badan yahay midnimada Soomaaliyeed iyo wada jirkeeda waxa halis ku jira cadow dalkii iyo dadkii iyo qarannimadii iyo madax banaanidii Soomaaliyeed oo cadow soo jireenihi uu damaaci ku wado waxaan ka filan karnaa maanta fariin naga ah inaad qayb ka noqotid adiga iyo maamulkaaga cusubba Soomaali midaysan danteeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda u midaysan u tanaasusha dhammaan wax allaale iyo waxa midnimada Soomaaliyeed ay ku hirgalayso isla markaana aad ka noqotid sida ay sooyaalka taariikhda reer Puntland u leeyihiin Soomaalidaas hankeedu gaarsiisan yahay inay bariga Afrika iyo Afrika oo dhan taladeeda qaybta ugu weyn ee hogaankeeda yeelato waxaan ka rajaynaynaa marka hogaamiye Soomaaliyeed oo aad tahay maantay in gogoshaasi Soomaaliye ay ku midowdo inay tahay Puntland waxa budriga u ah waana meesha kaliya ugu muhiimsan ay Puntland kugu dooratay
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي محمود محمد نعاوي هالكان وحنا سوون نمد حفلة سودوين وكوسابسن مدحوينها كحجينك يو قدوميها بارلمانك بونتلاند سنة 2009 waxaan leenahay soo dhawaada madaxda cusub ee Puntland ee la doortay soo dhawaada madaxdii hore oo soo shaqaysay ayaguna madaxweynuhu ka mid ahaana ayagana waa sagootiyeena waxaanu leenahay aad baa u mahadsantihiin boqolkiiba boqol shaqada soo qabateen shaqo wanaagsan ayay ahayd ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha hay'ad sharfa dunya aakhiraba madaxda hadda cusub oo xilka noo haysana waxaan idin kula dardaarmaynaa cadaalad iyo horumar iyo waxqabad insha Allah ta'ala iyo naseexo dadka inaad u qaboojisaan insha Allah ta'ala abniga inaad ka shaqaysaan iyo horumarka bulshada inaad isku xirtaan beelaha iyo mataqaanaa bulshada guud ahaan gobolada ilaa iyo Khaatumo ilaa iyo Puntland ilaa iyo intii kale oo la halmaasho insha Allah inaad isku xirtaan oo ahaataan dawladda xataa guud oo Soomaaliya iyo guud ahaan Soomaaliya inaad gogol iyo saldhig u noqotaan insha Allah gogoshaad ku baaqdeen ee ku saabsan wada hadashiinta iyo يعني حالة الصومالية bulshada kala gedisan ee geesaha kala leh inaad isugu soo dhaweysaan aad baa ugu mahadsantihiin ayadana insha Allah ta'ala si wanaagsan
inaad uga midowdaan una qabataan ayaan idin rajaynaa insha allahu tacaala meesha haddaanu ka hadlayno joogno waxa way magaalada Göteborg ama Gothenburg ee waddanka Sweden halkaana waxaa ku midaysan oo ku dhan runtii bulsho tiro badan oo Soomaaliyeed aan cid gaar ah lahayn fariinta aan caawa idin soo gudbinayna oo bulshadaas oo dhan idin leedahayna waa inta ay la mid insha Allah taala waan idin duceynaa waan idin garab taaganahay ilaahay idinkiis waxaan rajaynayaa hadafkeenu inaanu ahayn nin mucaarada iyo nin mu'ayida waxaan taageerino waa system Puntland waxaan ayadana waa ayada waxa la xijcelo naga hayso runtii oo aanu dharaar iyo mataqaana habeenba u taaganahay ee aan jecelahay inay wanaagsanaato oo horumartana waa systemka Puntland kan Khaatumo iyo mid kasta oo la mid ah oo Soomaaliyeed ee amniyaadka iyo wanaagga iyo horumarka ka shaqeynaya insha Allah aad baan idin salaamaya salaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waxa weeye Cusmaan Maxamuud Ismaaciil ama Cusmaan Maxamuud Xeeleen oo sidoo yaqaano runtii waan bogaadinaynaa caawa xafladan meesha ka dhacday ee ah doorashadii ka dhacday Puntland ay ku soo baxeen mudane Dr. madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenka Ilyas Cismaan Lugator iyo Cabdirasaaq gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkaba run ahaantii waa wax loo baahnaa caawa meeshaan joogno waa xafladu ka dhacayso waa magaalada Gothenburg ee Sweden ummad Soomaaliyeed oo dhan baa ka soo qayb gashay meeshaan Soomaaliyeed baa ayaa u dhan waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa sidii loogu kulma garow in meel walba Soomaali joogta ama qurba ah inaan ugu wada kulano oo dalkan iyo dadkeena horumarkiisa wanaagiisa aan ka shaqeyno iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waan bogaadinayaa mar labaad dhammaan madaxda Puntland ee la doortay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan hambaliyay taageero uga direynaa madaxda cusub ee dawladda Puntland xukuumadda cusub madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni iyo Ilyas Cabdirasaaq Lugator iyo gudoomiyaha Cabdirasaaq Axmed Siciid waxaan leenahay ilaahay hawsha leedin idmaday iyo dawladda aad dhisteen oo xukuumadda soo socoto ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku guuleeyo annaguna waxaan leenahay hambaliyo annagoo jaaliyada reer Göteborg ah magacayga Safiya Dahra Waare بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأود عينينا دولة سبوا دلتي مدحوينة كحجانك قدوميها برلمانك وحلينا إن شاء الله هوش هيسار الله سبحانه وتعالى هيدين فدودية وأنا همبلينا همبلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيادة هيبة ثانية شيء والجماعة على صالح